gabadhii ninkeeda dishay waxaana filaynin markii ay dhacdo aniga oo asasay caruurteeda zaid ugu fikiray horta waxa la sheegayo aniga inta la sheegayo dhan xabsiga ku jiray oo maba ka warqabinba waxa banaanka ka dhaxayo maba ka warqabinba dada ay imaanay waxay dhahayaan tii waatana oo ninkeeda dishay anigana waa la yaabay waqtigaas waxay ugu noqotay shoog ay ugu noqotay familkeena markaa weydiiyo maxaa banaanka ka dhacayo qofku sheegayo malahan because way ka naxayaan aadiyaas marka soo baxay arkay media dhan waa ku jiray social media dhan waa la igeliyay anigana hore YouTube u lahaa oo muxuu ahaa waxay ila noqotay samcad xumo ila noqotay sidii media la igeliyay oo ninkeyga dilal ahay horta ninka Allah u naxariisto anaga dhan samir Allah naga siiyo aamin waa ka xanuunsaday waa ilmaheyga aabahood ma fahanti mana dili lahayn qof oo aqligiisa tamaam yahayna kuma fikiraya hal second inuu caruurtaada aabahood aad dishay ma ku fikiraysid qof fikiraya ma ahan marka dilka Xasan Cabdi sidee ayuu u dhacay horta muxuu ahaa message waa tusinaya linkana waa arkaysiin message adiga wuxuu ii soo diray ku qanacsaneen ma fahantay beerkiisana awal ma u sheegi jiray wiilkan physical abuse igu haya u sheegi jiray wuxuu ila qaban jiray malahan reerkeenana always waxay ka shaqeyn jireen ilmaha waxa waaye aabahooda waaye iska daa haduuna aayo no problem iska daa adigana dhalinyaro tahay kuma qanacsanid maanta waalidkaaga in la caayo kuma qanacsanid aadiyaas marka Xasan ilaaha u naxariisto message uu soo diri jiray wuu dhahay banaankaas daa ku arko waa ku dilaya muxuu ahaa bahaaga sidaan waay kaas waa adii message fall kuma tusi kari hada ku tuso wallahi oo hina ka imaanayso hooyadeedu caynaya adiga marka wiil waxa jiro oo habeerteeda ee dhashaa jirto wiilkii u sheegay waxa wiilka arintaana haysato aabana wuxuu ka qabanaya malahan ma fahanti koose muxuu dhaqan anaga waxa leenahay Soomaali maanta adiga hadii lagu dhibo walaalahaaga u imaanayo wiilka Soomaa meelana laga saara okay aniga wiilka walaalkayga u sheegtay waxa ku dhaay dhibkana haysto wuxuu dhahay dhib malahan ana la soo hadlaayo galabtii ana maray la soo hadlaayo so I told him okay adiga wuu u tagay wuxuu dhahay muxuu ahaa Xasan Abu aniga waxa ahay muno walaalkeeda ahay gabadhana dhibkana ku heesaabo iska daa adiga Xasan wuu booday wiilashii muxuu ahaa mindi u soo qaatay way kala carareen marka midka walaalkeeda xagee ka soo qaatay mindida wuxuu ka soo qaatay nin waxa jiro oo geedaha gacmaha suubiyo magacayaasha lagu qoray waxaas oo design-ka u suubiyo bracelet marka agtiisa waxa lagu gadaa toore asagana geedihiisa sharxana jiro tooreyga meeshu ka soo qaatay wiilkii daba bursaday wiilkana wuxuu ka soo qaatay mindida meesha fruitka lagu iibiyo ku soo qaatay aadi isna mindi kale soo qaatay wiilkii Xasan bursana Allah u naxariistay wiilka kala bursana marka mindida suu u ordaayay meesha mindida asagana fruitka lagu jajaro uu ka soo qaatay mindi kale iska waabiyo dhahay way fakatay waxayna ahayd qadar alle ahayd maanta ma jeclaysteen inuu horta dhinto ma jeclaysteen si kasta iskugu xumaadana ma jeclaysteen inay la dilo iska daay aniga naftarkeyga ani ahaan ma jeclaysteen inay muxuu ahaa caruurteeda aabooda dilo wiilkana asaga maba ka ahaanba wiilkii naftarkiisa wuxuu qaaday shoogu qaaday wiilkii wuxuu dhahay soo wacay baayatani taas dhacday wiilkii waa isku xumaanay mindi ii soo qaatay anigana waxa dhahay iska waabiya dhahay bintida way gashay marka sidaas uu Xasan ku tagay midida Xasan markuu wiilka walaalka ay la soo aaday xagee kaga dhacday uu u dhintay wuxuu meeshan dhabarka meelahaas uu dhuftay aadiya marka aniga meel badan wacay waxa la yiraahdaa Xasan uu dhintay
qaar waxay leeyihiin muu dhiman muu nool yahay adiga maalintii dhan shaki maalin ma ahayn waxay ahayd maqribadana waa ogtahay meel ma u bixi kartidbo lockdown jiro bandooyaa jiray marka meelo badanaa wacay qaar waxay leeyihiin wuu dhintay qaar waxay leeyihiin wuu nool yahay marka adiga subaxii aniga ilaa subaxii horta ma seexanin ani xataa shooga qaaday soo subaxii waxay soo wacay wiil askariya soo wacay wuxuu dhahay xagee joogtaa waxaa ku dhahay gurigeyga meeshaas waaye adiga directionkaa siiyey wuu i imaaday stationkaa tagnay markaas wuxuu dhahay sidee wax u dhaceen ninkaaga waa la dilay markaas waxaa ku dhahay inaa sabab u noqday horta u sheegay qoos hadaa qarin lahaa ani xataa qalbi madowaada ka qaadan lahaa mana jeclaysta midaas so waa sheegay waxaa ku dhahay arinta sidaas u dhacday marka adiga almost 3 weeks aa meesha ku jiray waa xirneed xabsiga waa xirnaa 3 weeks aa meesha ku jiray muxuu ahaa baaritaan igu socday anigana wiilka the same thing maalin kasta markuu i wareysto waa u sheegay the same thing waa u sheegay sidaas wax u dhaceen waana qadar alle horta ma fahamtay qadar allana wixii dhaceen maba soo celin kartidba hore le u socon kartaa aniga marka waxaa arkay markaa soo baxay social media meel kasta magacaygu yaalay waxaa dhahay horta wax haddii wax aa sabab u noqotay ilaahay le sabab kaaga dhigay dib u laaban kartid waxaa suubin kara kalina waxaa waaye horta youtube aa ka shaqayn jiray xinaa marin jiray waxaasna wuxuu u baahan tahay wejiga qof ee muxuu ula tagtid birita waxaa ku shaqaysanaysa haddaana ku shaqaysan karin ma ordaysaa no ma ordaysid waa inaa istaagtaa ka bilowdaa meeshaada horta sabab waa noqday yes I accept that ma fahantay anigana waa ka xumahay ma fahantay ilmahaygii ka dhinteen xanuunkaasna familkooda waa la qaybsanaya qasab waay marka intaasi sidaas u dhaceen markii telefoon uu kuu soo dhacay ee aad maqashay ninkaagii xasan cabdi in uu geeriyooday sababtana adigu aad lahayd maxaa dareentay aniga horta wallaahi kuma faraxsaneen habeenkii ma seexanin ma fahantay wallaahi xanuunaa dareemay waana kusasay sorry waxaa ahayd horta mid oo qafle ahayd waxaana filaynin markii ay dhacdo aniga waa sasay caruurteeda zaad ugu fikiray yes والله حنوني ونقطة مدرس waan ka xumahay dabcan sida aad dareemaysana waan kula dareemayaa waan ka xumahay dabcan caruurtaada iyo mustaqbalkooda hadda maxaad u rajeynaysaa well wax fiican aan rajeynayaa inaa muxuu ahaa hore u socdo anagoo dhanna samir ilaaha naga siiyo horaa u soconaynaa oo insha allah isagana markasta inaan xasuusnaano waa ku qasbanahay waa hagaag aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaaltaasi waxay ahayd Muna Aadan oo ka warbixinaysay arrin dhawaanahan bulshada ama baraha bulshada ay ku kulanto aad la isula dhexmaraya taasoo ahayd in Muna dabcan la sheegay inay ahayd gabadhii ka dambeysay
dilka dhinkeeda allah u naxariistay xasan cabdi. dabcan iyaduna maanta bulshada ayay jeclaysatay inay soo hor istaagto islamarkaana arrimahaasi iyo xaqiiqadooda ay kala hadasho. muno haatan ugu dambeyn adigu arintii kiiska xagga dabcan 20 maalmood ayaad xirnayd oo xabsi ayaad ku jirtay. kiiskii ugu dambeyn xabsiga aad ugu jirtay xagee kusoo gabagaboobay? horta kiiska wali waa lagu jiraa, kheyr aan rajeyneynaa. dhinaca oo shareecada islaamka iyo dhinaca kaleba kheyr aan rajeyneynaa insha allah. wiilashii iyagu kula xirnaa wiilka gaar ahaan lagu soo eedeeyay inuu isagu dilka geystay aad sheegtay adiguba inuu gacantiisa xasan ku baxay, isagu ma xiran yahay weli mise sidaadoo kale ayaa si damiina loo sii daayay? isagana weli wuu xiran yahay, laakiin waxaan rajeyneynaa isagana inuu soo baxo. koos xumaan isaga xataa kama ahayn, self defense ahayd. maanta adi xataa qof hadduu kusoo weeraray adi xataa waxaa qaadanaya mugta waa baqaysaa, naftaada u baqaysaa, istifaacaysaa. marka midaas waxay ahayd horta mid difaacay ahayd. marka insha allah isaga xataa kheyra u rajeyneynaa. waa tahay, bal waxaad inooga sheekaysaa horaan xilimo ayaad isguursateen adiga iyo xasan cabdi, ilaa intee ayaad wada joogteen? khilaafkiina markii ugu horeeyay muxuu ka bilowday? horta waxaa isguursanay 2013kii dhammaadkeeda isguursanay, almost 6 sano waa isqabnay. khilaafkeena waxay ka bilaamatay waxyaabo badan ay ka bilaamatay. mostly xasan allah u naxariistay wuxuu ahaa qof maseer badan, muu ogoleen inaa shaqaysto, muu ogoleen banaanka inaa u baxo. qof dumar haddaad tahayna guriga kuma jiri kartid, waa inaad shaqaysataa, wax la qabataa. haddaa maanta adiga aad shaqaysid faamilkaagaa sacdiyeyne, reerkaagaa sacdiyeyne, qof kale ma sacdiyeynaysid. marka khilaafkeena adiga markasta way sii weynaanaysay oo waxyaabo badan ay ku jirto, laakiin waxyaabo badan ay ka ahayd, maseer camal way ka ahayd. ficilna waa ka dareemaya meeshaas. marka allah u naxariisto. imise caruur ah ayuu ilaahay idinkala siiyay adiga iyo xasan? allah u naxariistay. 2 caruur. waa tahay, markii uu dhintay kadib waqtigiisii dhammaaday arintii dhacday, maxaa caqabad ah ama maxaa yacni fariin ah oo dhinaca faamilkiisa aad ka heshay? horta dhinaca faamilkooda waxaa dareensanaa horta inay xanaaqsan yihiin. okay, qof walba horta waqtigiisa uu qoran yahay. sida adig ku dhimanaysa ma ogi, sida anig ku dhimanayo ma ogi, ma fahantay? waqtigiisana meeshaas way ku qorneed, ma fahantay? qof oo u sabab ahaa oo maanta dhahaya ma lahan, qasab waa inaa ninkaas soo dilaa dhahaya ma lahan, ma fahantay? wiilkaas isaga xumaan muu wadan, ani xumaan ma wadan, laakiin meesha waqtigiisa meesha yaalay. marka aniga waxaa dhihi lahaa faamilkiisa maanta fariin ugu diri lahaa. horta xasan waa isjecleen, ma fahantay? jacayla isku soo guursanay. hadduu dhammaadana xushmada oo aabanimo u hayay. that's why intaasoo goor muxuu ahaa ficil igu hay, dhib igu hay, intaasoo goor ma u tegin. meel iska saar kaliya iga ahayd, laakiin xumaan maanta dagaal inay labadooda isdagaalaan xataa ma naga ahayn, koos waqti ramadaana lagu jiray. waqti ramadaan qof weerar kugu soo qaadayana ma jiro. so aniga message waxaa u diri lahaa faamilkooda samir anagoo dhan ilaahay inuu naga siiyo. waa tahay, markii arintii ay dhacday social media ama baraha bulshada ayaa lagu soo baahiyay sawiradiina, waxaana dabcan ciwaano looga dhigay gabadhii ninkeeda dishay. waa lagu xiray oo xabsi ayaad gashay. wiilashii ninka dilay ama uu sababsaday dabcan gacantiisa wiilka uu ku baxay, waxaa la sheegay inay ahaayeen group la yiraahdo super power oo la yiri super power ayay ku dalbatay. arintaasi maxaa ka jira? horta super power aniga horta meesha waxaa ka garanayo waa wiilkaas oo habeerteeda ay dhashay, ma fahantay?
wiilashaasna iyaga samcad xun ma qabaan, superpower ma ahayn, wax dil ay geysteen ma lahan, wax taleefon ay xadeen ma lahan, ma fahantay. iyaga waxay u socdeen inay YouTube soo duubadaan. anaga xataa markii YouTube soo duubaneen meel ina tagtiin tiimkiina laga yaabaa group of YouTube ay ahaayeen. waxaasoo dhan wallaahi wax uga shaqo jira ma laha, xataa wiilkan inuu wiil kale marayo may ogeen. waa tahay ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa ee aad aaminsan tahay in sawir qaldan lagaaga gudbiyay maxaad ugu baaqaleed maadaama aad tahay hooyo mar walbana aad u baahan tahay inaad bulshada dhex gasho si aad caruurtaada u korsato? horta muxuu ahaa aniga familkayga markii soo baxay waxay dhaheen meeshaan inaad ka tagtid waaye. no, meeshaan inaad ka taga ma ahan, meeshaas waa meeshii lagu dhalay, ma fahantay. bulshada Soomaali maxaa ugu agtagaa? aniga horta bulshada Soomaali maxaa uga agtagaya waa meesha Soomaaligayga xataa wajijaban waa aragtaa. halkan ayaad ku dhalatay? halkan aan ku dhashay. marka meel oo adiga aad ka shaqaysan karin ama muxuu ahaa let's say maanta caruurteeda muxuu ahaa soo qaadanaya, caruurteeda ma fogeeya, adoomiyada ma dhaxgalaa. ya bulshada Soomaali waa qasab inaad dhaxgalo, diinteeda aana ka soo bixin, bulshadeeda aana ka soo bixin. hadaa ku shaqaysanayo meeshaas aad ka shaqaysan jiray, meeshaas inaad ka shaqaysto. magaca xun muxuu ahaa la ii geliyana magaalada inaa la iga dhaafo. wadankeena sidaas uu maanta ku burburay, ficil iyo muxuu ahaa war la iska sheegayo ku burburay. so aniga ma jeclaysteen maanta caruurteeda inaa meel kala geeyo, ma jeclaysteen inaa meel kale ka shaqeeyo oo awoodo, ma jeclaysteen. so aniga waxaa dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed waxaa fariinta aan hubin iska daaya.